militariga Mareykanka ayaa in ka badan 5,000 oo ciidamo ah u diraya xuduudda dalka Mexico oo Mareykanku la wadaago si ay uga hortagaan in dhowr kun oo muhaajiriin oo ka yimid bartamaha Amerika ay ka soo talaabaan soodinta. Tan iyo markii muhaajiriintani ay bilaabeen geedigooda, madaxweyne Trump waxa uu ku tilmaamay in ay halis ku yihiin dalka Mareykanka. Saacado ka hor intaanan go'aankan lagu dhawaaqin ayaa madaxweyne Trump muhaajiriinta uu digay isagoo bartiisa Twitterka ku soo qoray in ay yihiin dad gaangis ah oo aad u xun, waxaana uu sii raaciyay waxaad doonaysaan in dalkeenna aad qabsataan laakiin ciidankeenna ayaa idin sugaya. haddaba muhaajiriinta ayaa waxa ay ka soo kici timeen waddanka Honduras, waxaana ay sheegeen in ay ka baxsanayaan cadaadis, saboolnimo iyo rabshado ka jira dalalkooda oo markaasi ay dhibaato ka taagan tahay. Geedigan oo ka soo gudbay dalka deriska ah ee Guatemala ayaa hadda waxa ay ku sugan yihiin Mexico. Maxamed Xaraare ayaa inoo haya faahfaahinta. filanwa ayay ku noqotay dad badan. talada ugumaanay jirin inay ka tanaasuli doonaan safarkooda beddelkiisana ay magangelyo ka dalban doonaan dalka Mexico. soo galootiga ka soo kici timay dalalka ku yaala bartamaha Amerika waa ay diideen qorshahan. dhowaan ayuu madaxweyne Enrique Pena Nieto dejiyey qorshuu ugu yeeray hooyag leelo, kaasoo u oggolaanayay soo galootiga inay degi karaan dalka Mexico isagoo shuruud uga dhigay inay ku ekaadaan labada gobol ee xiga dhanka koonfureed ee dalka. muhaajiriintan safarkooda ayay iska sii wataan. haddii safarkani muhaajiriintu ku adag yahay, wuxuu si gaara ugu adkaanayaa Isa Jalad. wuxuu ku dhashay naafannimo xadidaysa dhaqdhaqaaqiisa, muruqyadiisa dulqaadka ayaa ka sii dhimanaya maadaama masaafo dheer uu socdo maalin walbo. waxa uu ku tukubayaa dallad jaban oo uu cuskado. waxa uu rajaynayaa in dhaqaatiirta Mareykanku caawin doonaan. kalsooni kuma qabo magangalyada Mexico u fidinayso. ma doonayo inaan sameeyo sababtoo ah 10kii qofba 2 qof ayay magangelyo siiyaan, 8 kale dalalkooda ayay u celiyaan. sidaa daraaddeed ma ahan dalab rasmi ah, waqti dheerna way qaadanaysaa. waa adigoo xabsi ku jiro kale. gobollada Oaxaca iyo Chiapas waa gobollo sabool ah. soo galooti badanna waxa ay uga dhigan tahay nolosha ay kaga soo tageen bartamaha Amerika. waxaan doonayaa inaan wax baro gabdhahayga. haddii aan halkan ku noolaado, mushaarka shaqadu wuxuu la mid yahay kan dalkayga Honduras. wax badan uma dhexeeyaan. waxaan ku riyoonayaa inaan tago Maraykanka. waxaan weydiisanayaa madaxweynaha Maraykanka inuuna caawiyo. ilaa iyo iminka muhaajiriintani si ayay noloshooda u maareeyaan. waxa ay seexdaan waddooyinka, kiniisadaha ayay raashin ka cunaan, webiyo wasaq ahna waa ay ku maydhaan. si wada jir ayay ugu tabaabashaysanayaan inay ka gungaaraan yoolkooda oo inay tagaan Maraykanka. iyadoo uu Pentagonku u soo diray kumanaan ciidana dhanka xuduudda, qaar ayaa si dadban xisaabta ugu daraya inay ka tanaasulaan geediga wada jirka ah ee loogu socdo Maraykanka. marka laga soo tago magangalyada Mexico, qorshayaasha kale ee furani waa ay halis badan yihiin. iyadoo uu dhul dheer sugayo, caqabadda ugu weyni waxa ay u muuqataa inay ka taagan tahay sida geedigani isugu sii duubnaan karo iyo inay si wada jira ku gaari doonaan xuduudda.